dowladda Soomaaliya qaramada midoobay fuliynimo ku tilmaamo weerarkii lagu qaaday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha shacabka loo magacaabay wasiir maamul goboleed haddaba waa xildhibaankee ku daabo warka subax ciidan ka tirsan gorgor waxaa loogu qaabay tababar dalka Turkiga iyadoo ay kordhiyaan ciidamada Soomaaliya loo tababarayo xilligan Ahmed Madoobi iyo James Wan oo kulan ku yeeshay Muqdisho waxaa la sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimaha doorashada dalka kadib weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso madaxweyne Saciid Dani waxa uu shaqo joojin ku sameeyay duqa magaaladaasi haddaba maxay tahay sababta sidoo kale waxaad ku daawan doontaan warka subax wararkii ugu dambeeyay ee cudurka safmarka ee COVID-19 haday tahay markii ku guurayso soo booqata fadlan subscribe noo saar muuqaalkan like ray hadii uu jiro qodob ku xiiso kaliya maragti aad diibaneysana fadlan noogu reeb qaybta comments-ka mahsanid waxaan ku bilaabayaa dowladda federaalka Soomaaliya qaramada midoobay waxay fulinimo ku tilmaameen weerarkii lagu qaaday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareenaysaa weerarka nasiib darada ah ee hoobiyaasha lagu bartilmaameedsaday xarunta shaqaalaha gargaarka bini'aadanimo ee Xalane weerarkan fulinimada ah waxaa la isku dayay in lagu wiiqo taageerada muuqata ee bulshada caalamka iyo dadaalkooda kaga aadan dhismaha nabad iyo xasiloonida Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda weerarka hoobiyaasha ayaa cadeynaya isku dayga taagta daran ee argagixisada oo miciin biday inay beegsadaan samafalayaasha u yimid dalka si ay u caawiyaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada gargaarka bini'aadanimo kadib markii ay u midoobeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidii dalka uga sifeen lahaayeen argagixisada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda qorshaha midaysan ee geesinimada leh ee shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku wajahayaan argagixisada laguna weecin doono ficilada fuliynimada ah ay soo maleegaan argagixisadu sidoo kale kamaniye jabin doonaan walaalahood iyo saaxiibada Soomaaliya inay sii wadaan taageerada iskaashiga ee la taagan yihiin dalka Soomaaliya qoraalka ka soo baxay dowladdu waxaa sidoo kale lagu yiri waxaa rabnaa inaan u xaqiijino bulshada caalamka iyo shaqaalaha samafalka in dowladdu ay sii wadi doonto la shaqeynta daneeyaasha ammaanka si loo xoojiyo badqabka samafalayaasha caalamiga ah dhinaca kale ergey gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya James Wan ayaa cambaariyay weerarka 6 madaafiic ah ee ku dhacday xeendabka gagada garoonka diyaaradaha Dancade ee magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda manajira xarumo ay leedahay qaramada midoobay waxyeelo ka soo gaartay manajirin shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ku waxyeeloway hoobiyaashaasi waxaan cambaareynayaa weerarka madaafiicda hoobiyaasha ee al-shabaab ee ku beegsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayuu yiri James Wan soo kabasho degdeg ah ayaa u rajeynaya dadkii ku dhaawacmay goobaha kale ee garoonka diyaaradaha inkastoo ay jiraan falal rabshado wato noocaan ah haddana saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxaa ka go'an garab istaaga dadka Soomaaliyeed waxaana sii wadeynaa mar walba taageerada aan u fidinayno horumarka Soomaaliya waxaa sidaas qoraal ku yiri ergey gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Wan waa tahay intaas ay kaga gudubno wararkii ku saabsanaa hoobiyaasha lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho markan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka soo gootiyay cutubyo ka tirsan ururka 10aad ee Commandoska Gorgor oo tababar loogu qaaday dalka Turkiga Xasan Xuseen Xaaji wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya muhiimada gaar ah siinayso dib u dhiska ciidanka qalabka sida dadka iyo dalka Soomaaliyeed ayaa u soo tababaranaysan ciidan qaran ayaa tihiin waxay idin rajeynayaa in dalkiina aad u soo noqotaan idinkoo cilmi iyo aqoon kororsaday dowladda Turkiga waxaan uga mahadcelinayaa taageerada joogtada ah ee la garab taagan tahay dowladda Soomaaliya haddii ahaan lahayd dhinaca caafimaadka waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha iyo tababarada ciidanka waxaa sidaas yiri wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji cutubyo ka tirsan Gorgor ayaa sidoo kale Muqdisho soo gaaray kuwaas oo dalka Turkiga ka yimid waxaana ciidamadan guutada 7aad ee Commandoska Gorgor ay noqonayaan kuwa dalka Turkiga tababar dheeraad ah ku soo qaato ciidanka xilligan ugu awoodda badan isla markaana ugu buubuuninta badan Soomaaliya waa ciidamada Gorgor iyo Haram Cad oo ka kala tirsan militariga iyo booliiska waxaana ay yihiin ciidamo si gaar ah u fuliyo howlgalo culus waxaana ay noqdeen kuwa shaashadaha caalamka si aad ah u qabsaday marka la eego howlgalada ay fuliyaan iyo sidoo kale tababarka ay leeyihiin geesta kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ku sugan Muqdisho ayaa kulan la yeeshay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan qoraal lagu baahiyay bogga Facebook ee madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in kulankaas uu ka dhacay hoyga Axmed Madoobe ka degan yahay magaalada Muqdisho isla markaana
ku yaala aaga garoonka Aadan Cadde waxaana labada mas'uul ay ka hadleen arrimaha doorashada. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya. kulankan waxa uu ka dhacay hoyga uu madaxweynaha ka degan yahay magaalada Muqdisho waxaana looga hadlay arrimaha doorashada. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan ayaa si gaar ah kaga hadlay arrimaha xilligan ku gadaaman doorashada iyo kala aragti duwanaanshaha xilligan taagan. waxaa sidaas lagu yiri qoraalka lagu baahiyay bogga madaxtooyada Jubbaland. madaxweynaha Jubbaland ayaa Muqdisho soo gaaray iyadoo lagu wado in maalmaha soo socda uu ka qayb galo shirka madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka kaas oo diiradda lagu saarayo khilaafka hareeyay doorashada dalka. Axmed Madoobe ayaa la sheegay in la dejiyo gudaha xeeddaabka garoonka Aadan Cadde waxaana ammaankiisa sugaya ilaaladiisa gaarka ah ee ciidanka AMISOM sida lagu shaaciyay qoraal lagu baahiyay bogga telefishinka Jubbaland. madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa hore u dalbaday in shirka looga hadlayo doorashada lagu qabto goob ammaankeeda ay isku haleyn karaan taas oo ka dhigan in ay isku haleyn waayeen xarumaha dawladda. sida xogaha aan ku helino shirkaasi waxaa lagu wadaa inuu ka qabsoomo teendadii 4 sano ka hor lagu doortay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee Afasiyooni waxaana ammaankeeda gacanta ku haya ciidanka AMISOM. waxaana qabsoomida shirkan dadaal dheeraad ah ku bixinaysa beesha caalamka iyadoo lagu wado siciidan in uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. markaana madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa magacaabay wasiiro ka mid noqonaya xukuumaddiisa waxaana wasiiradan ku jira xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya waxaana uu noqonayaa xildhibaankii labaad ee dowlad goboleed ka noqda wasiir. maxamed cumar ciimoy wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ayaa loo magacaabay waana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. xubnaha kale la magacaabay waxaa ku jira xildhibaan Saalax Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta ayaa loo magacaabay halka wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga loo magacaabay xildhibaan Saadiq Salaad Warsame. maxamed cumar ciimoy waxa uu soo noqday wasiir dowladda federaalka ah isagoo xilligan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. maxamed cumar ciimoy waxa uu noqonayaa xildhibaankii labaad ee wasiir dowlad goboleed noqda marka laga soo tago Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug. dhanka kale wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya waxa ay baahisay kiisaskii ugu dambeeyay cudurka safmarka ah waxaa guud ahaan wadanka laga baaray 172 qofood. cudurka waxaa laga helay 139 gobolka Banaadir 92 qofood ayaa cudurka laga diiwaan galiyay. Soomaaliland 33 Jubbaland 11 Hirshabelle 3 dhimashadu waxaa la sheegay in ay tahay 12 gobolka Banaadir hal qofoodna Soomaaliland hal qofna Jubbaland. tirada guud ee cudurka laga helay waxa ay noqotay 8577 bogsashada guudna waxay noqotay 4033 halka dhimashada guudna ay noqotay 319. waxaa muuqata soo laba kacleenta cudurka safmarka ee COVID-19 in Soomaaliya si weyn farabaan ugu hayo iyadoo wacyigelinta loo sameeyo bulshadana ay tahay mid sii kordhaysa maadaama cudurkan uu yahay mid halistiisa wata. waxaana xusid mudan in dowladda federaalka Soomaaliya dadaal ugu jirto sidii kaalinteeda kaga qaadan lahayd wacyigelinta bulshada maadaama cudurkan uu yahay mid halis ah isla markaana bulshadu haddii uu ku faafo ay khatarta intaan ka badan karto. ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan. madaxweyne Dani ayaa sidoo kale afray hantidhowrka guud ee Puntland in uu baaris dhameystiran ku sameeyo maamulka iyo maareynta dowladda hoose. ku-xigeenka duqa Boosaaso Saciid Garoon ayaa sheegay inuu sii wadi doono shaqada dowladda hoose sida ku cad qoraalka lagu baahiyay madaxtooyada Puntland. shaqo joojinta lagu sameeyay Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan waxay imaanaysaa xilli habeennimadii Jimcaha weerar lagu qaaday xabsiga magaalada Boosaaso iyadoo mas'uuliyiinta amniga isla maalintii Jimcaha uu kulan la yeeshay Saciid Dani oo safar degdeg ah halkaasi ku gaaray. madaxtooyada Puntland faahfaahin dhameystiran ma aysan ka bixin shaqo joojinta lagu sameeyay Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan.